asalaamu calaykum taariikhda qaadko dhammaystiran siduu soomaalida ku soo gaaray gobolkii ugu horreeyey ee laga cuno qaadka dhibaatada caafimaad ee halista ah ee qaadka laga dhaxlo laakiin aan ka fiirinayna markaan dhinacaana weli laga hadlin maxay inta badan muqayiliinta oga cabanayaan docfi dhinaca jinsiga sancaa caasimadda yemen maxaa ka dhigay in ay noqoto caasimaddii ugu horraysay ee biyala'aana caalamka qaadka awgii sabab mawduucan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wuxuuna ku dhisan yahay baaritaano kala duwan ila kala duwanan soo xiganay waana muhiim in uu daawado qof walba muqayil ah haddii aad taqaano qof muqayil ah fadlan gaarsii muuqaalkan waxaan hubaa in uu isbeddel weyn ku samayn doono waanan kala dhigaynaa mawduuca waan qodobaynaynaa marka koowaad aan fiirinno taariikh ahaan geedkan qaadka oo magaciisa cilmiyeed loo yaqaano Catha adulus waa geed dhererkiisu gaaraya mitir ilaa 2 mitir meelaha qaarna inuu ka yara dheeraado waa macquul wuxuuna ka baxay inta badan bariga Afrika iyo dalka Yemen koonfurta jasiiradda Carabta taariikhda dhabtay geedkan lama yaqaan laakiin waxaa jira baaritaano leh in faraacinadii masaaridii hore ay u adeegsan jireen shay ay khayaalkooda ku sii daayaan waa markay fikirayaan ninkan waxaa lagu magacaabaa Carsten Niebuhr waa sawire kharaa'id caalim xisaabaad Jarmal ah asagoo xukuumadda Denmark matalayo ayuu safar baaritaana ku tagay jasiiradda Carabta 1762 waxyaabihii uu diiwaan geliyay ninkan waxaa ka mid ahaa in caadada taqsiinta qaadka ay ka jirtay waqtigaas waqooyiga Yemen qaadka asal ahaan waxaa la isku raacay in uu ka imaaday Itoobiya Yemenna uu gaaray qarnigii 13aad xilliyada qaar waxaa la dhahaa qarnigii 16aad macluumadan degdeg ee qabso maadaama aad qof damiir loo qaadka nacab Yemen waa dalka loogu cunida badan yahay qaadka halka Itoobiya tahay dalka ugu soo saarka badan sidoo qaadka anaaka Soomaali ahaan ugu soo gaaray marka koobaad wax walba waxay muujinayaan in Soomaalida ay qaadka barteen waqti aan fogeyn waqti aad u dhow ilaah qaar ayaa leh 1930kii 1940kii meelahaas oo ah runtii waqti aad u dhow haddaba xaguu ka bilowday meeshii uu qaadka ka soo galay dhulka Soomaaliyeed waa xagee inta aanan sheegin aan dhahna tusaale ahaan waxaad ku sugan tahay koonfurta ugu dambeysay Raas Kambooni Jubbada Hoose waxaadna rabtaa in aad safar ku tagto Lowyacde mar walba oo aad dhinaca waqooyi iyo galbeedka u sii jeesato waxaa sii badanayo cunida qaadka arrinkan waa xaqiiqo jirto oo qofkii raba naftirkiisa iska hubin karo haddaba qaadka xaguu ka bilowday markii ugu horreysay xagee lagu qayilay dhulkeena Soomaaliyeed ee galbeedka dhaco mantiqada juqraafi ahaan loo yaqaan ogaadeen ama Soomaali galbeed ee daraska laha Itoobiyaanka waxaan wada ognahay Itoobiya inuu aad uga baxay qaadka baaritaan muhiim ah oo lagu qoray Somali Talk 2002 ayna ka qayb galeen professorro iyo aqoon-yahano Soomaali muhiim ah rag la isku haleyn karo mas'uuliyadda qodobkan ayaga iska leh waxay leeyihiin qaadka markii ugu horreysay waxaa bilaabay rag xer ama culimo ah rag waqtigoodu muhiim u ahaa rabayna in ay soo jeedaan ayagoon cilmi weyn u lahayn waxa uu yahay geedkan waxayna ula dhaqmayeen sidii shaaha oo kale intaas kadib maxaa dhacay waxaan wada ognahay waqtigaas in dhulka Soomaaliyeed iyo waqooyiga ama Somaliland uu Ingiriiska xukumayay waxaana jiray gawaari xamuul isaga gooshta labada dhinac haddaba baaritaankan ay khubarada Soomaalida sameeyeen wuxuu leeyahay darawallada gawaarida safarka dheer ku jiray si ay u soo jeedaan ayay calaamaha qaadka daaqi jireen kadib markay dareemeen in uu siinayo xaalad soo jeed ah baaritaankan wuxuu leeyahay darawallada wuxuu uga sii gudbay odayaal shaqo la'aan ah oo markay sheekaysanayaan fadhi ku dirirayaan iska fadhiyaan cuni jiray qaadka kadibna qaadka wuxuu u sii gudbay koonfurta Soomaaliya ilaa hadda waxaa jira furuuq u dhaxaysa dhinaca qaadka waqooyiga iyo koonfur iyo waliba galbeedka ogaadeen tusaale ahaan koonfurta inta badan dadka qaadka cuna waa maleeshiyaad ama dad nolosha ka dhacay il aan wanaagsanayn ayaana lagu fiiriyaa haddii tusaale ahaan hadda aad Muqdisho ku sugan tahay qayisho il aan wanaagsanayn ayaa lagu fiirini bal way adag tahay in aad aragto arday ama qof dhalinyaro iska caadi ah oo qayilayo laakiin musiibada ugu weyn ee koonfurta waqooyiga ee uga duwantay waa in dadka qaadka cun inta badan ay yihiin maleeshiyaad ama ciidan ayagoo marqaansan wixii ay rabaan iska sameeyo waana arrin argagax leh halka waqooyiga ama Somaliland aad arkayso xarun xisbi tusaale ahaan lagu qayilayo ama inuuna ceeb ka ahayn arrinkan kale waxaan ula jeednaa yacni qaabka qaadka loo fiiriyo inuuna ceeb ka ahayn sida koonfurta aad ayayna isu shabahaan waqooyiga ama Somaliland iyo Yemen dhinaca isha lagu fiirinayo qaadka Yemeniinta masaajidda ay ku dhex qayilaan arrinkan kaliya yani waa sheegida xaqiiqadaas jirto hadda haddii la dhaha qaadka lala dagaalamo way sahlan tahay in koonfurta Soomaaliya lagala dagaalamo laakiin waqooyiga ama Somaliland way adag tahay in qaadka lala dagaalamo sababtoo ah inta badan ceeb looma arko
macluumadan degdeg ah ee qaadka ku saabsan qabso 1973 ayay hay-adda qaramada midoobay ee WHO u aqoonsatay qaadka inuu yahay maandooriye dhab ah. Wadamada caalamka inta badan waa ka mamnuuc qaadka. Maraykanka tusaale ahaan wuxuu u aqoonsan yahay maandooriye darajo koobaad ah. waxaa jira tirakoob argagax loo ku saabsan dalka Yemen oo leh in 90% dhalinyarada dalkan dadka qaangaaray ay qaadka cunaan. waliba Yemen wuxuu nooga daran yahay in dumarka iyo carruurta ay qayilaan. فقد وجدت كثيرا من الناس يمضغون عشبة يسمى القات وبشكل منتشر جدا، حتى أني وجدت أن المسألة تجاوزت الأعمار، حتى الصغار يتناولونها، أحيانا نساء عجائز، حتى الشرطة تفتشك في الشوارع. qaadka markii la beerayo wuxuu u baahan yahay biyo aad iyo aad u badan, waana cadowga koobaad ee bii'ada. caasimadda Sanca ee Yemen waxaa laga baqaya mar aanan fogeyn inay noqoto caasimaddii ugu horreysay caalamka ee biyo la'aan ah. malaayiin tan oo biyaha ah ayay ku waraabiyeen beeraha qaadka, taasoo keentay in biyaha dhulka ku hoos jiro ay eber noqdaan almiyah aljawfiya. qaadku wuxuu fuuqsadaa biyaha kaydka dhulka. 1952 koonfurta Soomaaliya waxaa haystay Talyaaniga. qaadkan aad ayuu ugu yaraa, dad fara ku tiris ah ayaa cuni jiray, sida ay leeyihiin ilaha kala duwaneen soo xiganay. laakiin Talyaanigu wuxuu soo saaray qawaaniin lagu mamnuucay qaadka. waa 1952 asagoo u arkay mukhaadaraad halisa. waxaa ka sii horreeyay in Ingiriisku uu waqooyiga ka mamnuucay sidoo kale dhowr mar 1940 dowladdii Soomaaliya ayaa sidoo kale mamnuucday gebi ahaanba qaadka Maarso 1983. Yemen, dalka Yemen maanta haddii aad weydiiso qof Yemeni ah sababta dhibaatada Yemen, shaki la'aan wuxuu kugu jawaabay qaadka ayaa sabab u ah. dalka Yemen wuxuu soo saari jiray nooca ugu tayada wanaagsan bunka, laakiin beerihii bunka waxaa lagu bedelay qaad ayaa lagu beeraa meeshii bunka lagu beeri jiray. ثم إن شجرة القات تستهلك كمية رهيبة من الماء. هل تتخيلون أن 61% من الماء في جمهورية اليمن يصرف فقط على القات، وبقية 39% من الماء يصرف على بقية الناس في شرابهم وطبخهم وغسلهم وبهائمهم وزروعهم. 60% dhulka la beertay ee Yemen waxaa lagu beeraa qaad. ma qiyaasi kartaa musiibada ummaddaas ay ku jirto? halkii marduuf ee jaada, halkii xirme ee jaada wuxuu u baahan yahay 500 litir oo biyo ah. waliba dalka cabanayo biyo la'aan sida Yemen oo kale. 2009 dalkan Yemen waxay adeegsadeen 1 bilyan oo litir shidaal ah soo saaridda biyaha lagu waraabinayo beeraha qaadka, biyaha dhulka laga soo saaro. 2014 dowladda Ingiriiska ayaa mamnuucday qaadka Kenya gebi ahaanba laga keeno. At this meeting in West London, these members of the local Somali community are celebrating the UK ban on cat. Its effects ruin lives, say Somalis who have pushed for the ban. malaayiin lacag ah ayaa Kenya ka soo gali jiray, laakiin ma jirto dawlad damiir leh, hogaamiye damiir leh, qof ummadiisa mustaqbalkeeda ka fikiraya oo ogolaanaya in maandooriye noocaana dalkiisa uu ku soo qulqulo. cid ogolaanaysa ma lahan, ciddii ogolaataana damiirkeeda dib ha ugu laabato. Somalia and Kenya strengthened their bilateral ties. Newly elected Somalian President Hassan Sheikh Mohamud ended Friday a 2-day official visit to his Kenyan counterpart Uhuru Kenyatta. At the end of his trip, the country's foreign ministers announced the nations had agreed to restart with immediate effect the trade of the stimulant khat, meaning that air shipments of khat, also known as miraa, will resume after a 2-year hiatus. Somalia is one of the biggest markets for Kenyan miraa. Soomaaliya waa suuqa koobaad ee qaadka Kenya. malaayiin lacag ayay Kenya ka faa'iidaa suntaas ay Soomaalidu dhuuqayaan, halka Etoobiyana ay ku harqayso suntaas waqooyiga. annaga Soomaali ahaan qaadka dhulkeena laguma beero, taasoo ka dhigan in malaayiin lacag ah oo ka qaalsan midka ay wadamada lagu beero aan ku bixino qaadka, malaayiin lacagteena inaan ku bixino suntaas. markuu Ingiriisku mamnuucay qaadka, Kenyaatku way xanaaqeen, xubno baarlamaan ayaana cambaarayo qaylqaylinayay. The people here say a ban on khat will destroy their lives, but the drug is not without its dangers. Experts say chronic use can cause exhaustion, depression, even violent behavior. aanu imaano webiyada dhibaatada ee qaadka laga dhaxlo. qodobkan aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay qof walba muqayil ah ama qofkii ku fikirayo in uu qayilo. qaadka wuxuu leeyahay aan dhahna marka koobaad yani dhiirigelin kaano sida maaragtay gambaleel oo kale, munabih oo kale, kor u qaaday xaaladda nashaadka jirka, soconayana ilaa 3 saacadood, laakiin kadib jirka uu galayo xaalad daal ah, taasoo keenaysa in qofka muqayilka uu sii cuno qaad dheeraad ah
saacada iyo saacada uu meesha fadhiyo haddii qaadka uu joojiyo yani ma soconka ma istaagi karaayo waad aragteen muqayiliinta in kabarada lagu qayla ay saacada badan fadhiyaan yani qaadkaas hadduu afka ka qaado uu dabagadoomi ma istaagi karo marka waa inuu intaasoo saacadood meesha iska fadhiyaa qodobkan wuxuu aad iyo aad u quseeya ragga muqayiliinta saamaynta halista ee raganimadaada inaad nin tahay inaad nin raga tahay waxa kaa dhigaayo ayuu halis ku yahay qaadka marka koowaad mudane waxaad ka dhaxlaysaa hoos u dhac hormoonka testosteronka oo ah aslan waxa keenaya inaad xaaskaada damacdo haddii uu hormoonkaas kaa yaraado keliya inaad dirac xirata ayaa kuu dhiman salaamu calaykum iyo raganimadaadii weliba hormoonkan ma ahan keliya micnaha in dhinacaasuu qaabilsan yahay xitaa yani codka raganimada murqahaada waxa mas-uulka ka ah waa hormoonkaas laguna magacaabo aslan hormoonka shidaalka ragga in codkaada uu weyn yahay codkanaga micnaha uu sidaan yahay uu ka duwan yahay codka dumarka waa uu yahay uuna ahayn ma fiican tahay waxaa sabab u ah hormoonkaas sidoo kale haddii aad muqayiltay isbeddel ayaa ku imaanaya xubinta taranka ilaahay kuu abuuray waxaana dhacdo in muqayiliinta ayagoo fadhiyo meelaha lagu qayilo wax dareen jinsi aan uu haynin in ay shahwada soo dhaafto asagoo meesha iska fadhiyo iska qayilayo way ku dhacdaa muqayiliinta inta badan muqayiliintana waxay ka sheeganayaan ducfi dhinacaana xaasaskooda inay aad oga sheeganayaan arrinkan waa arrin 100% la hubo haddii aad dhallinyaro tahay oo aad qayisho adigoona 40 gaarin ayaad eber noqonaysaa dhinaca kale dhareerka afka ilaahay ugu talagalay ee carabka bishimaha dhabxanaga muqayiliinta waa eber waad aragtay afkooda inuu qalalan yahay mar walba oo aad u malayso micnaha qof aan bannoolayn muqayiliinta afkooda carabkooda wuu qalalan yahay halka dadka kale uu caadi yahay dhareerka wax walba qooyo uu soo daadanayo qaadka wuxuu sababaa oomateed xumo muqayiliinta inta badan yani muuqaalkooda waad aragtay ma wanaagsana weliba aan dhahna maleeshiyaadka dhallinyaradaas haragga iyo maqaarka ah ee indhuhu ceelka noqdeen waa oomateed xumo iyagoo weliba meelahaas fadhiya kabarkaas fadhiya qayilayaan ilkaha ayaa madoobada sidoo kale muqayiliinta qaadku wuxuu dharbaaxo weyn u geysaa sidoo kale dheefshiidka sida inay muqayiliintu inta badan ka cabtaan qabsiimo xagga caloosha muqayiliinta in uu wadnuhu istaago way oga badan yihiin dadka kale caadiga waxaa ka sii daran saacadahaas beerdaroobaya malaayiintaas dhallinyarada mustaqbalkoodu dayacmaayo hantida iyo wakhtigaas khasaaraya soomaaliya oo ah dal sabool ah waxaa qaadka uga baxa lacag aadan malayn karin ma filayo in ay jirto khiyaano ka weyn in kaalin aad ka noqoto burburinta ummadaada burburinta dhallinyaradaas dalkaada iyo wax walba inaad ku istaagto yeman ayaana daliil kugu filan dalka yeman maanta wuxuu marayaa meel halis ah yani xitaa khaliijiyiinta kale markay shirarka yeman laga hadlaayo nabad ma loo raadin karaa xuutiyiinta iyo xukuumadda ma la heshiisiin karaa waxaad arkaysa ayagoo leh inta aafada qaadka ee yeman ka jirto wax raje ma laha yeman waxaan u baahannahay dhinaca wacyiga inaan kor u qaadno in dhallinyarada waxbartay ay booqdaan xarumaha lagu qayilo suuqyada ay aadaan kadibna ay raggaas walaalahooda gacanta soo qabtaan ay ka badbaadiyaan haadaantaas ay ku jiraan weligaana ha ka sugin xukuumad ama maamul soomaaliyeed noocu ahaadaba weligaa ha ka sugin inuu qaadka la dagaalamo inuu qaadka mamnuuco intooda badan waa maafiya wax ka galayna ma lahan mustaqbal walaa dhallinyaro waxaad ugu fadhidana mala dalkaas aslan haddii berri suuqa la geeyo waana fadeexad aanan dhaqmaynin in gaalada ay mamnuuceen qaadka ayagoo leh waa maandooriye qashin ah waxay aaminsan yihiin in qaadka uu ka xun yahay khamriga hilibka doofaarka uu ka xun yahay xumaan oo dhan uu ka xun yahay sidaas darteed way mamnuuceen laakiin adigoo muslim ah qur'aankaas akhrinaayo axaadiidta nebiga oo ilbiriqsi walba lagu weydiinayo meeshaad ku bixisay in aad saacado iska fadhido kabar aanan la fiirin karin hortaadan qashin uu ku daadsan yahay runtii waa ceeb iyo fadeexad mar kale ha ka sugin maamul soomaaliya ka jiro noocu ahaadaba inuu qaadka la dagaalamo qof iyo laba waa laga yaabaa keliya waxaan u baahanay annaga ka soomaali ahaan ka shacab caadi ah inaan ka qayb qaadanno mas-uuliyadda annagayna saarantaa shacabka soomaaliya dhulka annagaa iskale micna ayaga ma lahan ayaga waxay u arkaan mashruuc maalmo lagu soconaayo waxay u arkaan mashruuc yacni xoogaa malaayiin lagu helaayo laakiin dhulka annagaa iskale annaga soomaali shacabka annagaa iskale sidaas darteed waa inaanan ka sugin dadkaas waa inaan annaga wacyiga ka qayb qaadannaa waa inaan dhallinyaradaas wax u sheegnaa mawduucan intaanu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu